Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada daawadayaal channelkeena aragtida maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharixi doonaa qayb ka mid ah filimka Spider-Man oo ah filim aad u xiiso badan taasoo soo baxday sanadku marka uu ahaa 2002. Atooraha filimkan oo lagu magacaabo Peter Parker oo ay soo qanintay caaro ayaa waxa uu imaanayaa guriga adeerkiis oo uu la nool yahay isagoo xoogaa dareemaya xanuun. Adeerkiis ayaana weydiinaya waxa ka qaldan waxa uu ku jawaabayaa in uu u baahan yahay chief una seexan rabo. Peter oo xanuun iyo wareer dareemaya ayaa waxa uu ku dhacayaa dhulka waxa uu ku waabarisanaya isagoo aan ahayn qofkii hore oo isbedel ku yimi muuqaalkiisa iyo dabeecadiisaba. Waxa fiicnaanaya aragiisa oo markii hore uu qaadan jiray awkiyaale aragga ah oo uu wax ku arki jiray. Waxa uu sidoo kale isku arkayaa isbedel jireed waxa uu la yaabayaa awoodda xad dhaafka ah ee uu yeeshay. Intaas kadib Peter waxa uu soo aadayaa iskuulka. Peter oo cunto cunaya ayaa waxa agtiisa ku taraaraxaysa gabar waxa uu isla markiiba qabanayaa gabadhii cuntadeediina si dhib yar oo dhaqso badan ugu badbaadinaya iyadoo gabadhii ay la anfariirayso sida cajiibka ah ee uu badbaadiyay ninkani wayna u mahad celinaysaa. Peter ayaa isku arkaya awood uusan weligiis isku arag taas oo ah inuu wax walba gacantiisa ku dhajin karo isagoo isticmaalaya xarig sida shabaqa caarada ah. waxa uu awoodayaa inuu ku soo qabto cunto miis saaran waxa uuna u tuurayaa cuntadii gadaashiisa isagoo la yaaban waxa ay cuntadii ku dhacaysaa nin lagu magacaabo Flash oo miiska ka gadaaleeya fadhiya. Xarigii oo sidii ugu dhagan weelkii cuntada ayuu Peter u dhaqaaqayaa dhanka iyo banaanka. Ardaydii oo idil ayaa la yaabaysa ninkan khatarta ah ee leh awoodda saa'idka ah. Flash oo aad u caraysan ayaa waxa uu soo dhaqaaqayaa dhanka iyo Peter isagoo raba inuu ka arguto waxa uu isku dayayaa inuu feer ku dhufto balse Peter ayaa u goynaya feerka. Flash ayaa dhowr jeer isku dayaya inuu la dagaalamo oo uu feero Peter balse Peter ayaa qabanaya gacanta Flash isla markaana waxa uu hal mar ku dhufanayaa feer aad u xooggan oo uu dhulka la dhigay. Peter waxa uu mar kale tagayaa goob lagu ciyaaro feerka waxa uuna ka qayb galayaa tartan feerka ah oo halkaasi ka socday. waxa uu la ciyaarayaa feeryahan aad u xoog badan iyadoo uu taageerayaasha feeryahankaasi ay ku qaylinayaan inuu cashar lima ilaawaan ah u dhigo wiilkan yar oo uu dilo. Peter waxay indhihiisu qabanayaan feeryahan laga soo guuleystay oo la sii wado kaas oo lugta ka jaban. waxaa loo xirayaa masraxa feerka iyadoo la doonaya in labada feeryahan mid laga guuleysto oo laga taqaluso balse waxaa feerka si lama filaan ah ugu guuleysanaya Peter. dhacdooyinkaas kadib Peter Parker waxa uu ogaanayaa inuu awood u leeyahay in uu ku socon karo darbiyada isagoo gacmihiisa ay noqonayaan sida lugaha caarada. sidoo kale waxa uu ogaanayaa inuu awoodo in uu meelo dhaadheer ka boodi karo isagoo isticmaalaya xarig sida shabaqa caarada ah. waxa uuna kor duulayaa dabaqyada dhaadheer ee ku yaala magaalada uu ku nool yahay. daawade fadlan subscribe noo saar channelka si aad ula socotid muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan ku soo gudbino. like-ta iyo share-tana ha naga ilaawin. mahadsanid.